Ismaaciil Muuse Sheekh Aadan iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Fidaar oo ka mid ah mudanayaasha la doortay ee golaha deegaanka Hargeysa una sharaxnaa jagada maayir ku-xigeenka Hargeysa ayaa maanta waxay shaaciyeen in ay ka tanaasuleen oo ay u tanaasuleen Khadar Axmed Cumar oo u sharaxan jagadaasi maayir ku-xigeenka Hargeysa iyo Cabdikariin Axmed Mooge oo isna u sharaxan jagada maayirka Hargeysa ummadda u sheegaya inay maanta hankii aan lahaa ee aan in badan ku socday inaan maruun halkaa fulinta fuulo in maanta ay ku soo ururtay inaan ka tanaasulo oo aan u tanaasulo maayirka ilaahay uu calaamadiyey inuu maanta maayirka inoo noqdo iyo maayir ku-xigeenka Khadar labadoodaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaanu runtii annagu taageersanahay maxaan ku raadaaye xisbiga wadani xildhibaanadoodu iyo maxaan ku raadaaye ucuud maayirkayga cusub markasta waanu taageersanay iminkana aanu taageersanahay maayirka cusub waxaan leeyahay maayir waanu ku taageersanahay waanu ku garab taaganahay mar hore iyo iminkaba waxaan kaloonu taageersanahay walaalkay Khadar oo maayir ku-xigeena adigana waanu ku taageersanahay waanu ku soo dhaweynayna waxaan kaloonu mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga rajada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo hoggaanka xisbiga waxaan kaloon soo dhaweynayaa tanaasulkii uu sameeyey maayirkii hore dhammaan maxaan ku dhahdaa golaha deegaanka ee Hargeysa waanu kaaga mahad celinaa waan mahadsan tahay dhinacooda musharaxiinta loo tanaasulay ayaa iyaguna u mahad celiyey mudanayaasha tanaasulay walaalahay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sida qiimaha leh ee sharafta leh aad noo garab istaagteen hankiinii iyo himiladiinii baad uga tanaasusheen waxaan idinka rajaynaynaa biidnillaahi kariim inaad hadhow toole garab iyo gaashaanba noo ahaataan oo aynu wada shaqayno oo aynu walaalo ahaano oo aynu isgarab taagnaano waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacabweynihiina soo doortay ee ballanqaadka aanu u samaynay waxaanu mar labaad idin ballan qaadaynaa inaanu annagoo tiima oo dhammaantay 17 isgarab taagan inaanu idin shaqayn doono walaalada aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan qofku inuu han yeesho oo wax doono waa sax marka labada mudan inay han lahaayeen wax doonayeen ay ku mahadsan yihiin Ismaaciil inuu mudanuhu hankii uga tanaasulay aniga aawaday waan uga mahadnaqayaa aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa marka horena isku xisbaan ka soo baxnay marka dambana waa uun hankunba ragga kala leexinaya imakana hankiisiibuu ka tanaasulo hankaa uu ka tanaasulay haddana isku soo celinaya ragga marka horena meel lama kala tegin marka aad baan xildhibaankayga ugu mahadnaqayaa mudanahayga walaalka Cabdiraxmaan Fidaar isagana sidoo kale waan u mahadnaqayaa isagu waa nala joogay laakiin xogaa sawiradu malaha ka maamalaa dhowr show dadkii baa si kale u turjuntay marka kulankan wuxuu u joogaa inuu tiimka ka mid ahaa runtiina garab taagnaa waxaan nala doonayay isaguna han waa lahaa gudahan deegaanku waxay mucjiso maartay noqon doontaa rag badan oo han lahaaba aniga awoodii hankoodii maartay uga tanaasulay meeshana han la isaga tanaasulay mid waa la wada shaqeynayaa weeye ceebtana waa la wada leeyahay guushina waa la wada leeyahay marka insha allahu tacaala waa wada shaqeynaynaa walaalayaal waynu wada guuleysanaynaa walaalayaal insha allahna waxaan noqon doonaa qaar magac kaga taga qaar taariikhdu xusto oo taallo ku yeesha Hargeysa dhexdeeda intaana wuxuunbaa inoo hayso uun inagoo shaqayna hadhiyo habeen daacadnimo ku shaqayna ammaanada u ilaalina dadka masaakiinta hadday cidi gaajoonayso inagu gaajoona intay iyagu gaajoon lahaayeen waan insha allahu tacaala rajadii shacabka ina dul taala nin rajada shacabka dul taalana ninbaa igu yidhi maalmahan ma qosashid markaa tvda ka hadlaysido waxaan ku idhi qosolkiiba uu dhammaado dee hawshana sugaysaan ogay baan ku idhi culayskeeda meeshan ammaanada iyo waxaana laga filayaa iyo xaalku siduu yahay iyo markaad arrimahaas u dhan eegto waa arrimihii laga ducaysan jiray weeye marka insha allahu tacaala waa sii ducaysanaynaa sharcigana waa sugaynaa waa sharci waxaa ah marka mudanayaasha golaha deegaanku ay fadhiistaan fadhigooda ugu horeeya ay doortaan gudoomiyaha ku-xigeenkooda gudoomiyaha golaha deegaanka la yiraahdaa iyo gudoomiyaha golaha deegaanka markaas sharci noqonaysa inta ka horeysa oo aan ku cudur daarana hadii title aan si sheegano waa sharci ma ahayn title si sheegta hadda maayir baa magaalada jooga maayir ku-xigeen baa jooga sharciya xil wareejin bay sameyn doonaan maalinta xilka wareejiyaan bay noqonayaan maaradii hore noqonayaan annaguna markaas aan titlada cusub
qaadanayna marka mudanayaashu markasta ay hadlayaan waa inay ilaaliyaan waa inuu sharciga aad u ilaalinaa taytalada saxda ah waa in isticmaalaa imika waxaanu nahay mudanayaal la doortay baynu nahay marka layna dhaariyana mudanayaal golo deegaan baynu nahay marka dambe fadhigu dhaceen doorno gudoomiye ku-xigeenkeena gudoomiye ku-xigeenkeena oo duqi noqonaya gudoomiye ku-xigeenka oo duqi ku-xigeenkii noqonaya xasan galaydh wararka Cable Hargeysa.